munaasabaddan oo ahayd mid lagu xuseeyay xuska maalinta bini'aadantinimada adduunka ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka mid ah xukuumadda oo ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland, gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka, mas'uuliyiin ka socday hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka, mudane Faysal Cali Sheekh Maxamed, waxaana uu ka warramay doorka ay hay'addiisu ay ka qaadatay samata bixinta iyo tabaaleynta dadkii ay soo food saareen abaarihii kala duwanaa ee ka dhacay dalka iyo duufaantii Sagar. xukuumadda Soomaaliland runtii diyaar waxay u tahay inay wada shaqayn dhow kala yeelato hawlahaasi dhammaan hay'adaha caalamiga kuwa qaramada midoobay kuwa localka iyo kuwa kale internationalka iyo dawladaha caalamka. run ahaantii dalkeena sida aynu la socono Soomaaliland marka aynu u dhacno waxa ka dhacay duruufo badan oo ay u badan tahay dhinaca abaaro si joogto ah. shantii sanadood ee u dambeeyay waxaa dhacayay abaaro saameyn ku lahaa nolosha dadka reer Soomaaliland, khaasatan miyiga, xoolo-dhaqatada iyo magaalooyinka runtii biyo yaraan jirtay. saameyn badan bay runtii waxaasoo dhammi nolosheeda ayay ku lahaayeen. xukuumadda Soomaaliland runtii diyaar waxay u ahayd anagoo network ah oo hay'adda dhinaca humanitarianka runtii ka shaqaysa inta badan ah iyo hay'adaha kale dawliga ah ee dhammaantood dhinaca horumarinta iyo dhinaca kaleba runtii ka hawlgala. waxay diyaar u ahayd runtii in ay si buuxda gacan buuxda ay ka siiyaan cid kasta oo gacan naga siinaysa sidii aynu wax uga qaban lahayn dhibaatooyinka. qaar fara badan baa runtii soo dhacay. shantii sanadood ee u dambeeyay abaaro joogto ah baa dalka runtii ka dhacayay. waxaa xoolihii baa dadkii runtii ka dhammaaday ama wax yar ay ka hadhay. qofkii xoolo badan lahaa waxaa laga yaabaa in 10% wax ka yar qaarkoodna ay kaba dhammaadeen. taasi waxay u baahan tahay runtii in dee laga jawaabo, in dadkii la taakuleeyo, in wax lala qabto, in dhinac kasta oo noloshooda ka mid ah runtii wax laga qabto. waxaan aad iyo aad waxaa kaloo iyadana dhacay sanadkii tegaysa aynu la socono duufaantii Sagar ayaa iyaduna saameyn ku yeelatay dhinaca xeebaha galbeedka ama waqooyiga. dhib fara badanna runtii dadka u geysatay, nolol fara badanna sahayatay. taasna runtii gurmad aad iyo aad u fara badan iyada oo xukuumadda Soomaaliland ay hormood ka tahay. hay'adaha caalamiga ahna runtii aan uga mahadnaqayno doorka ay ka qaateen runtii ayaa wax badan baa laga qabtay. geesta kalena waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay afka hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee kulankaasi soo qaban qaabiyay, waxaana ay ka warrameen ahmiyadda ay maalintani ay leedahay. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland, mudane Saleebaan Cali Korre. dadku waxay arkaan ama dad badan inta Soomaaliland runtii waxay arkaan dhulka inta furan ee reachable-ka la gaari karo. laakiin waxaa jira dad ku nool meelo aad iyo aad u adag in la gaaro. waa u baahan karti iyo adayg iyo in qofku ku adkaado waxa uu qabanayaa inay tahay wax uu qof bini'aadana naftiisa ku badbaadinayo. adnimada iyo bini'aadanimada ayay ka mid tahay in qofku u adkaysto dhibaatooyinka. geesta kalena gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka, mudane Faysal Cali Sheekh Maxamed, ayaa waxa uu ka qayb galay kulan lagaga hadlayay xogo laga soo ururiyay beeraha wax soo saarka ee Soomaaliland, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen gobolada Togdheer, Awdal, Maroodijeex iyo Gabiley. waxaan rajaynayaa insha Allah kulli report-kana in uu noqdo mid xaqiiqi ah oo meelaha aan ka hadlayno wax ka tara, maadaama aanay beeran oo roobka ay ku xidhnay noloshooda runtii ay ku xidhnay. qaybihii roobkii dambe waxaana runtii aan ka mid ahay. marka runtii waxaan ku dhiirigelinaynaa wada FNCU inay si gaar ah inay u eegto gobolka Maroodijeex. waayo marba waxaan xoogga saarnaa meelaha ay dhirtu ay ka jirto. marbari baa noo priority, mar galbeed baa marna bartana. marka imika saacaddan aynu joogno meelaha roob la'aanta ah baa priority noo ah oo saameyn badan. xoolihiina aanay daakhilaynin badankoodii waxay dhinaca bariga Hargeysa ayay xoolihii galbeedka la runtii ay ku maqan yihiin. xamse qurbaani, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Hargeysa.